السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore cid walba meeqaamka ayalkan ku fadhidayaan ku salaamaya waa koobidona waxa la yidhaahdaa libaax arkaysay ma godlato waayo dad iga cilmi badan iga aqoon badan iga waaya aragsan ayaa wajahadayda fadhiya marka af Soomaaligeeguna waa waxa la yidhaahdaa nin xaafadaha iyagiiba lugta kabuubiyotayo buu yidhi war maxaa ku helay suu yidhi jilibka ay wareeray marka af Soomaaligeegu hadduu wareero waydun iga raalli ahaan doontaan intaas waa kaftan mawduuca lay dhibay runtii waxyaabo yar oo kooban baan ka soo diyaariyay waanan sii koobi doonaa maadaama waqtigu muddo 15 daqiiqo inaan ku soo koobo ayaan isku dayi doonaa ummad inay horumar gaadho dhalinyartu doorka ay ku leedahay maxaa se caqabada dhalinyarta hortaagan dhalinyartoo qura maaha ee bulshadoo dhanba maxaa ina wada hortaagan inay ummadi hana qaado amba ay horumar gaadho mawduuca buu ahaa mawduuca lay dhibay da'yarar amba use age waxay yidhaahdeen gaaladu adigu 14 ilaa 15 ilaa 35 da'da inta u dhaxaysa iyay dhalinyar iyagoo yaqaan laakiin waxa professorkuna uu ka dhawaajay inan yar oo Soomaaliyeed tayadaynu dadka dheernahay oo 5 jira oo 400 oo neef oo ariya raacday oo intay saa u eegto tiraahdo nayshiina hiblaya maqan nacam tayada dadkeena aynu inagu xaqirayno inaynu dadka ka liidanayno aaminsanahay ta horumarinta u baahan waa ta dadka waaweyn waa iska daayay buu yidhi professorku dhalinyarta in focuska la saaro dhalaanka in focuska la saaro la rabay waa ka saddex waxa la yidhi ummadii caanaha goorma gadhoor la caanaha goorma subag laga helaa marka ay xasilaan ee ay gadhooraan ummadina goormay horumar gaadhaa marka ay xasisho iyo la isu geysan karaa maal iyo muruq iyo maskax la isu geysan karaa haddaba saddexda inaan la isu geynin caqabadaha ummadda Soomaaliyeed hortaagan maxay yihiin su'aasha isweydiinta li waa taa kow caqabadaha horumarka hortaagan waxa weey ummadda Soomaaliyeed waxa ku jira way fiican tahay ummadda Soomaaliyeed way wanaagsan tahay tanay tahay laakiin practically marka aynu istayno laalayaalow run aynu isu sheegnay laba nin baa shuura walada wadasi kulay Facebook aad ugu dhibteen baydun gelin laba nin baa shuura la wada siiyay nin indhala iyo nin indhaqaba shuura la wada siiyay ka indhaha qabay wuxuu ku leexsaday indhooluhu meeluna arkayn raadi nag laakiin waa u uraya wuxuu yidhi waryaa war baa jira suu yidhi maxaa jira suu yidhi war sankaygu hayo ay gacantaydu laada waxaan ka wadaa Soomaali way fiican tahayna waa leeyahay subax walbana waxa la sheegay waraan dhagahaygu ku farxay nacam intermis in qawl ahaan iyo ficil ahaan inaynu is ahaano horta way ga dardaaran ta aan rabo taynu ku dhaqanay inay taa noqoto ta kale waxa jira nacayb iyo godob aanad adigu gelin oo cid kala gashay 700 sano ka hor odaye waxay isweydaarsadeen amba gacan dad ku kala dhexdhacday cid maanta joogtay inay u dhimato nimba waxa la yidhi nin amiin la yidhaabay islaayeen amiin oo ka dhex guuxaya oo amiin cuqdadiisii ku jirto ayuu masaajidka galay waa la tukaday markii salaada laga baxay buu sheekhi ducadii bilaabay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تي مساجد كلا يدوب يسوق محمد حسوستي آمين سيري هو يدين وحاكو سمعي وكبح وايس فاني سمعها ومدى الصومالية وحان دوني ياين هالكن يدين كلا دردار مودلين يروي ولا ليالو آمين كيد سلايسين إيا آمين تمساجد كو هاي نوكلا صوعن هذا واكلا لوا
waxa ay inaga danteenu ku jirno war walaal hal qodob haddaynu isku diidno 99 adna kuudana anna iidana yaynaan iska raacin waa isfaanisan marka gudaheenu it have to be clean takale cidda waxa la yiraahdaa leaders ma hogaamintu waa role wuxuu nin kastaba wax laga tuugi jiray tu uu yaqaanayo tusmu uunku kala leeyahay ee teenana siman nimba waxa la yiraahdaa tooye heerku ka gaadhay xarigan kaba tolo aha kabaha xariga lagu tolo ayuu nudxada waa 3 nud xarigu 3 nud way oo isku soo han 3 mid xada nacam xatooye nin xarig ka baxsan way ayaa la yiri waxa tahay madaxa maxkamadda iyo cadaaladda iyo garsoorka erga waydi xajaadan afqallo Allah naxariistay 1963 gabaygu tiriyay ee la yiraahdo tabaalaha adduun waxa ku jirta kaba tole maxkamad loo tirshay isagoo tolonka uun jeexa barbuu xabada xariga hadduu buuga teelteel u dhiga taasiya male ee in kastaba istiilo waxa taag u hidin weedo ninka kaaga togan uga tagbantani awoodin halka hebel walaalkayba iga mudan tolkay habaar baa kaga dhacday guulna kuma gaadhaysid ilaa inta aynu qofkii saxda ahaa halkii saxda ahayd waqtigii saxda ahaa aynu la beegsanayno guul sida loo gaadhay runtii way adag tahay ta kale khilaafka iyo isku dhaca oo soo jiitama waxaan xasuustay markaan akhriyay tan odayro Soomaaliland oo kelmadda ila meerayso yaaba jiray waxa jirtay sheekay Soomaali waxa caan ah diin godgal godgoraygal goray godgal goddiingal okay kelmadda waa isdul taagaynaa maanta oo godkan horta yaale ilaan marka khilaaf yimaado waa in dadkii loo gar qaadaa soo diinku naturally wuxuu ku dhalaa god intuu labada lugoodee dambe hog ku qodo ayuu dhalihiisa ku aasa ka bacdi temperature-ka dhulka kulaylka uumibaxa dhulka ayaa ababiya dhalaha diinka gorayadu ilmeheeda arooriday dhigtaayo aboodigu kul bannaan baan ku ogeyn gorayo marka yaa khaldan marka dacwadda yaa hor keena ka wax dulmiya ee gafka geysta ayaa inta badan dacwadda ku horeeya ilaa uu og yahay wax la weydiin doono waa inuu ka sii hordegaa wuxuu yidhi diin baa god iga cali moogaala gabaygan cali mooga geedi wuxuu yidhi diin baa god iga qaaday buu goray ku baanaaye gadhcadaadi bay weyday iyo guurtii hawlgale ee godka maalintuu qoday cid baan gorayba weydiin horta intaan gardaba la gelin war goormaad god qodan jirtay oo diin ku haysata nacam keena khaldan hadaynaan qabanin guusha caqabadaha inaga hortaagan bay kamid tahay waan isfahanaan filaya ta kale bulshada qaybaheeda kala duwan maqaal yar waxaan akhriyay Africa nin la yiri maxay u horumari weeday oo I don't know waxay yiraahdeen Mugabe quotes Africa maxay u horumari weeday baa la yiri wuxuu yiri ninka Afrikaanki mantuu maal leeyahay uu muruq leeyahay uu maskax leeyahay dalal kale u taga hantiilaheedu wuxuu tagaa buu yiri dibadda aqoon-yahankeedu wuxuu tagaa meel kale marka uu maalkii iyo muruqii iyo maskaxdii dhamaysto dhinto yiraahdaa dalkaygii hooyaha laygu aas waa qabri suu horumari buu waa qabri suu horumari inta aad xoog leedahay eed awood leedahay ee aqoon aad leedahay ayuu dadkaaga iyo diintaada iyo afkaaguba ay ku baahan yihiin ee maalinta aad maaragtay ta kale dadkeena dibadda wax ku soo barta intooda badan oo habaarka igu dhacay bullshit Afrikaano nigula soo noqda ee aan tala keenin amba aqli soo kordhinin amba hooyadu ariga ka ooman yahay aan xal u wadin
inta joogta oo aan isu roonayn maamulka xilka haya oo aan go'aamadii saxda ahaa amba maaragtay awoodeedii iyo kartideedii aan lahayn iyada lafteedu waa gaababka ka mid ah degma la isku laayay practically waxyaabahan u arka degmada laba reer baa isku laayay guddoomiyihii baa lagu eedeeyey reerkiinaad la safatay qiimayntii markaan u yeedhnay baa qiimayntii la galay baa la yidhi reerkiinaad raacday guddoomiyihii usuu yidhi oo hadda ayaan raaci lahaa khaladku ninkaasi jawaabtuu bixiyey waa sax because reality on the groundiga dhulka ka dhacay buu kuu sheegay laakiin qofka maamulka ah baa loo baahan yahay inuu kasii digtoonaado oo inuu qofkani ummadda dhexdhexaad u yahay uu labada islaynaya isagu ka mas-uul yahay marka horeba looma sheegin nabigeenni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam baxun lama odhane waxaa la yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq qofku xilka iyo waajibaadka ta loo dirayo in la isweydiiyaa muhiima mushaharku waa imisa howlfulintu intee in leeg bay leeg tahay haddaad ka bilowdo guul gaari maysid ta kale ummadda soomaaliyeed caqabadda ku ah waxa weeye dhaga adayg ismaqal la'aan aayadda qur-aankeed waxay ahayd ina alinsaana lirabbihi lakanuud ibni aadanku dhaga adayg inuu yahay ilaahay baa inoo sheegay isagoo laba qofa ayaa la yidhi ibni aadanka war geedkaa un ha cunina wax kasta waa idiin fasax geedkii bay cuneen soo ma etoobiya maanta 120 milyan ah khalad intee leeg baad markaa ka filanaysa nacam inaad wanaag iska wada filato dadku iska wada fiicnaado aduunbaa ku daali ma wada fiicnaanaya dadku naturally dhaga adaygu waa wax jira wuxuu yidhi carays ciise soomaalay dhagala ey dhagaxatii ka adagay taan meel dheer dhowrinay walaalkeed dhiiggiis iyo dhexdeeda u dhiiranay xaqiiqa cad wey qofku markuu kula joogo waa qof fiican waa wax wanaagsan markaynu sidan u wada hadlayno halkan marka laga bilaabo laga baxo automatically qofku wuxuu noqonayaa qofkii kale ka duwan odayaayim waxay dhahdeen jifadii baan nahay oo saasoo saan kudhi adeer bakooradda weyn maxaa idinka qariyayo jifada waa inta yare oo hoosaysee bakooradda qashinka taabata halkaa gudaafadale maxaad inoo geysiin baan ku yidhi bakooraddu meynadi dhammaystir ku qurux badnayn wadartaynu ku qurux badannahay kelida kuma qurux badnayn marka we have to think inaynu taa ku baraarugsanaa ta kale waad garanaysiin gabaygii timacadee allaha u naxariistee dul iyo hoosba waan ugu dhegaya waa dexdhegaxeed dadkan la hadlayaa baan lahayn duxiyo iimaan bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday dihashanaysaa hal maalin waar isdillay oo isgaraacnay ninna ma tago waan wada joognaa war kollay wada joog hadday inoo tahay innagoo isu niyadsan inaan wada joognaa walaalayaal miynay ka wanaagsanayn nacam option ya maxaa yidhi tu kasta furan ta kale dhaga adayga iyo isdilka iyo maaragtay markaynu inagu isu naxariisan weynay buu yidhi wuxuu yidhi qaasim allah u naxariistee waa waxa abaarna natiijada ka soo baxday isdilkeennii dhaawicii maxaa la yidhi walaalo xintamay wayna xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan natiijada ka soo baxday haddaba nacaybkaynu ku dhaqanay maxay tahay kow wuxuu yidhi waa waxa abaar nagu salliday soof mareebta socda ceelka waa waxa biyuhu uga socdaaleen biyihii ceelku hoos bay u dudeen samadii daruur laguma oga seerma weydada wuxuu yidhi samadii baa noo cadhootay oo dhulkii baa noo cadhooday oo annagoo gacanku dhiglayaala isku soo hadhnay labadii daaroodba waan ku khasaarsannahay buu yidhi ilaa labada daaroodba khasaaraha nagaga dhigin ta kale ku soo gabagabaynayaa waxa weeye maadaama waqtigu in badan la soo qaatay hawl nacayb soomaalida hore waxay odhan jirtay xagla laaban xoolo kuma yimaadaan generationka imika joogaay xataa thank you waa 8 xaraf 3 buu qoraa TKS I'm telling you the truth
wuxuu lama helo wadaada waxaan cid ku hawshan wax adduunyadana hawl yaraan lagu helay ma jirto wuxuu dhoodan Allah u naxariistee samaatadana kii raadiya ee sabanagaajooda safrad iyo boqol iyo lug iyo suudi iyo guure intuba waa socod samaatadana kii raadiya ee sabanagaajooda safrad iyo boqol iyo lug iyo suudi iyo guure saldha adag waxay ka gasho iyo surin cidhiidhiyoodba marun buu ilaah siinaya uu midigta saara ha yeeshee sansaan bay rabtaa saas markay tahay waa inaad samirkeedii iyo dulqaadkeedii iyo maalkii iyo muruqii iyo maskaxday kaaga baahnayd guusha aad rabto inaad gaadho aad u hurta haddii kale guul ma raadinaysid it's a dream waad riyoonaysaa riyaad ku jirtaa ta kale timacda waxa uu yidhi midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada marka aanad lahayn looma lulamaanka weliga ee magaabada hashaadaa ka roon maydhanaan kale ninka intanoo fooq leh aniga maalinna xabad bariisa iima iibinin intaad leedahay hashaada yar ridaada yar cawsu dhigo oo caana ka maal taadaa ku huran nolosha sidaad u rabto haddaad u weydo waa ku qasban tahay sidaanad jeclin inaad ku noolaato marka waxaa iga dardaarana inaynu inagu isu niyad samaano danteennana ka wada shaqaysano maal iyo muruq iyo xasilooni guushaydu waxay ku jirtaa guushiinuna waxay ku jirtaa aniga ee haddaynu isdillo waxaa la yidhi walaalkaa unbaa kaa dhimayoo kugu dhimay markaynu wada nahay weligeen guul gaadhi mayno kollay saacadihii baa sidaas u yaraaday intaasaan doonaya inaan ku koobo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillah ustaadka kusii adkayn mayno waqtiguna waa iska kooban yahay waxaan rabaa inagoo ixtiraamayna dhegaystayaasha ilaalinaynana waqtiga hal qof ah oo hal su'aal ah weydiiya baan rabnaa inaan siin laakiin su'aashaas waa inay noqoto su'aal inteena kale dhan inaba teli karta si qurux badan oo kooban oo muhiim ah labiyo dhadig waxaan idhaa cadaaladeeyo wiil iyo gabadh ka dhig hal daqiiqa qaata waayahay waxaan siinaynaa raalli ahaada waxaan rajaynaynaa inaad soo koobtaan wiilkaas iyo gabadha u dambaysa khalaas wiilku waa kee wiilka kor yar istaag istaaga bismillah magacaygu waa fadxi ustaad wasiir Muxidiin hal su'aal baan weydiin qabay su'aashaasina waxay tahay inta badan jiilashan dambe saddex qof aan ku xidhanahay oo Sheekh Mustafa iyo Aadan Sahan iyo adigaan anu inta badan aad ku dhageystaa marka su'aasheedu waxay tahay deegaankeena markaa joogto dadka wax u gudbiya hadday tahay saxaafadii hadday tahay siyaasiyiin iyo hadday tahay macallimiinba waxaad moodaa qaabka tabintoodu inay aad u liidato adigana waxaan ku aragnaa inaad ka duwan tahay dadka kale deegaanka joogo dhalinyaraduna aad bay kuugu dawan yihiin bal markaa maxaad u samayn weyday fursad ama maxaad jiilka ugu ogolaan weyday fursad aad cilmigaaga ugu gudbiso annagoo ama aad iskugu day weydana jaamacadaha waaweyn ama jigjigiyo koleejada bal cilmigan iyo qaabkan aad wax u gudbinayso inaad tababaro ku siiso hadday tahay saxaafadii iyo hadday tahay bahwadaagta kale ee bulshada ku xidhan tahayba aad baan ku salaamaya maadsantahay bismillah yarstaag bismillah magacaygu waa Warda Cabdigaas waxaan salaamayaa golaha madaxda iyo sidoo kale Muxidiinba waqtiga kooma darteed anigoo su'aashayda gudagalaya dadka adiga oo kala ah wax garanaya dhalinyarta ka aqoon badan maxaad xil iskaga saari weydeen in la idin arko madalaha noocan oo kala ah waqti ka duwan dhibaatada ay ummadeenu halkan la gaarsiisan tahay aan waxaan saaraa dadka wax bartay waliba sida loo kala waaweyn yahay maalinta bandhig noocan oo kale ah jiro ayaa la idin arkaa idinku intaad isku timaadaan eed wax meel dhigtaan maxaad noogu soo gudbin laadihiin oo maadsantahay
بسم الله الرحمن الرحيم أدي أدبا وما هتسنتهين runtii laba su'aalood oo muhiima ayaa la soo jeediyey aad iyo aad baanad ugu mahadsantihiin fursadda aad maaragtay ugu gudbiso anugu hadda ka horna waan maaragtay ballan qaaday mar walba diyaar baanu ahay ummadda inaan wax u qabto mar walba diyaar baanu ahay inaan maaragtay ciddii ay qusayso jaamicadda kolley waan wada hadalay bashiirna waan wada hadalay madaxweynaha jaamicadda jigjiga cabdiruufna waan wada hadalay dhalinyarta qalin jabinaysa in la qabto nooma hirgelin laakiin waan ku tala jirnaa in aanu entrepreneurship shaqo abuur siday u samayn lahaayeen iyo from theory university to the practical university in la soo gelayo dadku way ku jaha wareeraan jaamicadda markaad ku jirto waxa dhacdaa halkaad wax ka cunaysa waa taqaanaa macallinkaaga waa taqaanaa halkaad joogto waa taqaanaa halkaad jiibsanaysa waa taqaanaa casharka lagu dhigay waa taqaanaa macallinkaaga waa taqaanaa intuba waa wax la wada yaqaan laakiin markaad ka soo baxdo jaamicadda aad soo buuggu ma dhiyo qalinku ma dhammaanine jaamicadda la soo galay dayr male macallinkeeda lama yaqaano taad la kulmi lama yaqaano nobody knows halkay ay ku dambaynayso marka jaamicaddan practicalka qofku si uuna ugu dhex hafanin xilka iyo waajibaadka ka saaran inaan fariimo uga gudbino waanu dhalinyarta dhiirigelino taa waan ku tala jirnaa laakiin ma hirgelin intayna hirgelinna nintiisii gabay unbaa tahay oo ayadaan leenahay waana ayadaan qaadanayno insha allahu tacaala waxaanan rajaynaynaa mustaqbalka inaan anigu shakhsiyan maaragtay aan howlahaas horena waan uga shaqayn jiray imankana inaan ka shaqeeyo insha allah diyaar baanu ahay ta kale waqti kooban unbaa laydin arkaa waa runoo xafiiska aan joogay aniga iyo mas-uuliyiinta kale iyo shaqaalaha ila joogaaba runtii xafiis fursad laga heli karo ma ah markaynu xaqiiqatan ka wada hadalno habeen baan sasay anigoo hurda waxaan ku sasay nin bukaana oo sariir jiifa uu nin dhakhtari leeyahay maaliyaddii mushaharkaygii soomay daynino carruurtaydii baa gaajoonay waan iskaga kaa tegaya uu kii jiifay ee bukaanka ahaa leeyahay way keeni doonaan ilaahay baa keeni doonay ha iga tegin naftaan iga baxayse marka saacad hadduu igu daaho mushahar degmo amba hosbitaal laga yaabaa inuu shil gaadhi oo dhacay mushaharka iyo lacagta aniga saxiixeedu igu xidhan yahay ummaddaasi u dhimato automatically I will become a criminal nacam mas-uuliyadda waxaa la moodaa dadku inay ku raaxaystaan oo ay dantooda uun ku qabaanoo ay ilaalinayaan markaad 395 degmo 11 gobol intaasoo xafiis intaasoo caafimaad intaasoo health intaasoo bukaana kharashkoodii inaad sii dayso waqtigiisii saacaddiisa ay kugu xidhan tahay warwar ka weyni ma jiro nacam dab haddaan idhaa buu yidhi ninkii maad ku guban haddaad taabatidun baad garan lahay dab mooyaane haddaad afka dab ka tidhaa garan mayse marka qof waxaan nahay nacam aniga iyo mas-uuliyiinta kale ila joogaaba mas-uuliyad intaa leegi dad ay damqayso oy dhibaysa waana intaasoo ka baxsan baan haddana dhalinyarta wax la qabtaa haweenka wax la qabtaa maxabsiyadii hadda ka hor aynu ogeyn falalka ka dhici jiray ciidamada asluubta oo dhan 5 sano u dambeysay baa dadka tababaray ee maaragtay in culimo la geeyo oo hadda dadkii oo hagaagsan soo baxaanoo meel laga warwar qaba ay noqoto lafteedu I have a big role door weyn baan kula nacam ma aha qof dadka cod ka rabo oo intaad soo joogsato ha lagu jeclaado amba istusa igama ah nin waliba wuxuu galabsaday wuu ilaahiisa la hortegi doonaa laakiin anigu waxaan ballan qaadaya wax ummadda u dan ah inaanan marnaba idinka hagranin taas waa mid aan ballan qaaday kolley intaasaan ku koobi dad badan oo kalena waan ballansanahay gaar ahaan ururada samafalka haweeney la soo hadlayay baa jira dhalinyaro la soo hadlaysay baa jirta marka schedule-ka dawladda imaka bisha sane qorshii baan wadnaa sanad 2016 waa in reportigiisii la xidhaa 2017 waa in qorshihiisii la diyaariya
baarlamanka wixii la horgeyn lahaa imakadanay shaqaaluhu xafiiska ku jiraan waa axad waana saacadda waad aragtaan nacam fadhi maaha iskama iman deganaanshahan iyo inuu deegaanku sidan isaga deganaaday ummaddu in aynu sidan usoo wada fadhiisano lafteeda hadda ka hor waad ogeydintii ka tagin marka alxamdulilah dhaliilo badanna way jiraan kuwaana sixitaankooda insha allahu tacaala inagoo isku duuban midnimadeenna iyo wada socodkeenna iyo walaaltinimadeenna wax waliba ku jiraan guushiina guushayda ah ilaahay fiiha aakhiraba kuwii guulaysta haynaga yeelo aad iyo aad baa umahadsantihin